shabakada caalamiga Shinina News oo maalmahan socod ku mareysay guud ahaanba deegaamada gobolka Saraar ayaa deegaanka Geerisa waxaanu kula kulanay guryihii dhawaan ku gubtay magaalada Geerisa kuwaas oo iyagu noqday guryo kuwa nooca loo yaqaan sandaqadaha oo iyagu halkaasi ku shufbeelay ayaa waxaan lahayn kasakooha inta yar qurba joogta beesha Ciise ay soo gaarsiinayaan deegaamadaasi ayaa barta xukuumadda Soomaaliland gardaar degdeg ah ay soo gaarsiin guryahan oo iyagu ilaa maalintii ay gubteen ilaa hadda aanay cid jawaab ka bixisay kasakoo in yar oo qurba jooga oo beesha Ciise oo iyagu in yar soo taray si kastaba ha ahaatee dadweynaha qaarkood ayaa cabasho xooggan waxay ka muujiyeen guryahani gubtay iyagoona sheegay in guryahan laga dhiso waxayna tilmaameen in maalin kasta kamaradu laga doogo isla markaasina guryahan dhismahooda ayna cid dhag jala qusin qaarkood oo arrimahaasi ka hadlayna waxay waxaad walaal iga siisaa faahfaahin guryihii gubtay iyo xukuumadda Soomaaliland waxay ka qabatay iyo baahiyaha jira magaalada waxa la cidii wax ka qabatay oo wali martaan guryaha gubtay daadad ka galay dadka dhibaatada haysa cid wax ka qabatay wali oo ka hayna waan gartay bal naga duubaa oo waxba guriyun balayda wax duubitaanka ma wax ka nama jirto laakiin dadka Soomaaliland waxa way dhibaato aad iyo aad buu isaga qaban dadkani waxay hantoodii way ku gubatay oo waxa hantilaan way ku gubatay wax dambe ay ku dhistaan way waayeen وأدرك تنقولي سلطات كوجلايو وحمشة قالنا وعسكر عيدا اليوم مثلا حاسدين ذوي يدك شعب كياله مركا أروح أقول لها سومال لاين ما تدي دقيقة مرة ثانية بقعدة جالسة ويقولي دات كعاد وقالين يا عنقر الضبكة وقراي صدق دو حلو غاب أدبن كجم هالعلينا يا أنا قاعد تسون حال عبد الله عبشر هذا وانقرسين يا عالم كيور بين تكلبا يعني حس si kastaba ha ahaatee guryahan ayaa ku bashufbeelay magaalada Geerisa iyagoona hanti badan iyo qasaare xooggan uu dabkii ka kacay magaalada Geerisa uu soo gaarsiiyay Cabdi Maxamed Cabdilaahi Shinina News magaalada Saylac.